عليكم إن شاء الله يلا haddii aad tahay arday dhammaan dadka igu xiran badi saan ogahay dhalinyaro kala duwan weeyaan hadii goor jecel horumarinta nafsadooda waxbarashadooda iyo inay fahmaan teknoolajiyada iyo qaabka looga faa'iideysanayo haddaba sanadkan maadaama uu bilow yahay waxa idin soo koobaya 6 website ayaan la wadaagayaa maantay 6daas oo aaminsanahay inay wax badan oo shirka ka bedeli doonaan dabcan waxa laga yaabaa in hore u taqaanay laakiin hadana in is xasuusino oo mararka qaar aragno bal farqiyada u kala dhaxayn karana waa muhiim ku dheeraan ma hadalka waxaan ugu horumarinayaa webkan loo yaqaan perplexity.ai oo mataqaana oo ninka soo saaray loo yaqaan in Hindiyaan uu yahay dhalinyaro ah oo ninka hadda meeshaan ka tusi doona magaciisa loo yaqaan Aramid Srinivas oo mataqaana founder-ka shirkaddan Perplexity ayaa waxay doodeedu tahay in sidaan ognahay Google wuxuu doodiisa tahay badanaa inuu dhaho search engine yani muxarrik ama machine wax laga baaro weeyaan ay waxay dhaheen Perplexity anagu waxaan nahay search answer jawaabta oo baaraadinaysa tusaale kale maanta daan dhaho the latest news warkii u dambeeyay oo ku saabsan daan dhaho tusaale AI iga sii warkii u dambeeyay AI ku saabsan wiisoo taxaya muhiimadu waxa weeyaan intaan website kala duwan galo wararka soo akhriyo hal u dhuuxi lahaa isbarbar dhigi lahaa webcast dhinacu ka taabta xooga saaran eeg lahaa hal mar ayuu soo koobo qodob iyadoo ah salahan oo kale US senator kamida ayaa wan wuxuu siiyay Europe iyo China asoo markaas ugu mataqaana u sheegay Mareykanka ama uu baaqaya inay dominate kareeyaan ayaan uga digay yani China u sheegaya soo China marka ka taxadar in laga muujiyo sheegay waxa la badan la miisaas oo kala group hogaaminaya Elon Musk oo sameeyay 97.4 billion bandhig ah yani offer ah in OpenAI gataan waxa wararka ugu dambeeyay dhamaantood weeyaan maalgashiga AI-da oo kor u kacay 62 qiimaha soo gaaraya $110 billion waxa la badan la mid Meta soo kordhisay Movie Gen waxa loo yaqaan hadda waxay cusub kan xitaa hore ma arag Microsoft oo balaarisay barnaamijkeeda Copilot okay muxuu kaga duwan yahay marka barnaamijkan hadda marka halkaan ku dhufto wuxuu tusay website-da ka soo xigtay tusaale Financial Times ugu horeysa news.mit oo jaamacadda MIT naqaana Massachusetts Institute of Technology BBC ayaa ku xigta TechCrunch Wired kulli websites ugu caansan oo hadda waxa way badanaa teknoolajiyada marka la baarayo laga akhristo okay Perplexity ninka dhalinyarada ah doodis ugu dheer markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay background wuxuu ka imaanaya academia hadii wuxuu rabaa inuu professor jaamacad waxa la mid ah laakiin se wuxuu ku doodayaa tahayna dabcan markii aan tusaale ChatGPT xog noocan oo kale aan rabnaa ka baarno kale wuxuu ku siinayaa xogo mala awaal marka qaar cid doona soo xigan kara marka qaar asaga wuxuu ku sameeyaa wax loo yaqaan AI hallucination aad u wararto wax ku alifaysta marka qaar buug aan jirin qoraay aan jirin dhacdaan hore u dhicin buu ku abuuraya laakiin kan asagu wax ma alifo wuxuu ku sameeyaa xogta internetka ku jirta inuu hal mar soo akhriyo si sax ah oo kooban ku siiyo ayuu doorbidaa Perplexity aanu kan isticmaalo waa free haddana saas ay tahay waa kaga kalsooni badnaa marka imaato wararka iyo factska internet ku jirta marka imaato midka ugu jecelahay weeyaan marka jecel waa qodobkeena koobkaas barnaamijkeena xiga dabcan waa midka kulliga wada taqaanaan oo loo yaqaan ChatGPT ana midka hadda meesha isticmaalay waa midka paid-ka ah lacagta ah laakiin saas ay tahay maadaama ognahay barnaamijyo badan oo aad ula tartamay maadaama ay soo bixeen asbuucii ugu dambeysay shirkadda OpenAI waxay xoogga saaraysay in ay asna ay awoodo badan ay sameeyeen su'aalahan ko Sam Altman oo ah maamulaha shirkaddan hadda hogaaminaya teamka dhalinyarada ka dambaysa wuxuu marar badan soo bandhigayay in ChatGPT qaybtiisa free-ga ah awoodo dheeraad loo sameeyay marka tusaale isla asaga haddaan weydiino kale latest news about AI haddaan oo kale laftigiisu warar badan ayuu siin doonaa dhawaan xitaa waxay ku soo dareen hadii la ku soo tabgeli waliba hadda midka aanu isticmaalay reason sameynayaan oo ay u fakaraya for oga midka ah saan uu ka fakar yahay oo su'aalaha badan generalka inuu ka jawaab jeceliyo waliba halka wuxuu noo sheegay hadda qaabka uu fakarayo user-ku wuxuu weydiiyay AI taas waa jawaab cad waa inaan confirm gareey daatada taariikhda oo ah latest oo yahay su'aalaha waa February 11 buu leeyahay hadaan fiirino taariikhdeena waa maanta February 11 marka muuqaalkan duubayno iyo xubno la mid marka waa kuna siinayaan next generation language model soo baxay of GPT-5 laga doodayo AI regulations ka shuruucdaha soo saaran Europe iyo xalamidka health care caafimaadka AI meel cusub laga gaaray climate action ka soo waadeysado iyo cultural AI waxa loo yaqaan dabcan xogaha dhan xoga waxa way somehow
general weeyaan yani wax specific ima siinayo saa hadda arkan xogta meeshuu ka soo xigtayna hadda ima siinayo linkiskii iyo meeluu ka soo xigtay iyo ilihii warka ima tusaysa arkaysa haddana saas way tahay mid kale adeegsanayo waa saa idin sheegay kii waxa weeyaan paidka lacagtaha oo hadda waxay kornka access perplexity oo free ah sidan si ka faahfaahsan oo ka waafisan ayuu xogta igu siinayay marka kan adeegsanaysaan dhigta ku hay laakiinse badana ChatGPT wuxuu ku fiican yahay xoogaha aad rabtid in la generate gareeyo generative AI loo yaqaan tusaale kale hadda rabtid paragraph urin code tusaale kale hadda halkan aan ku dhufano kale O3 mini high min lahaa jira wuxuu leeyahay great at coding and logic yani waxyaalaha logica garaadka u baahan iyo code gareynka ayuu ku fiican yahay leeyahay mid walba wuxuu ku fiican yahay aad dhammaan is garab safiin laakiin mid kasta ku fiican yahay ogaana weeyaan hadda isla su'aasha hadda su'aal weydiino isla for awgiisa tolo mana siin doonaa references aragno waayo ma raba inaan weydiiyo dho reference ku dar haddaan dhahno wuu noo sheegi karaa laakiin waxaan rabnaa anagu weydiin xitaa inuu mataqaanaa bal tolo na siin doono in kale inaan kala aragno su'aalaha kan oo kale uu soo qaatay shirkad la tartamaysa baryahan soo qaatay magaceeda accuracy oo ka hadlaya international xiriirka caalamiga heerka ka jirto kana ku soo diray hadda kan hadda wuu sheegayaa reference-yada uu adeegsaday Reuters Guardian kuwa kale la mid ah ayuuna tusaya dabcan laakiinse hadba mid ka dambe waxaan rajeynaya inuu saan kaga sii fiicnaado laakiin ma dhawaan marka ChatGPT-na waa mid kale oo aad si wanaagsan u adeegsan kartaan yani barnaamijyo badan baa jira jaacadu isticmaala hadda loo yaqaan Turnitin loo yaqaan Turnitin waa barnaamij jaacadu adeegsadaan oo haddii la ku sunto gal yahay xogo badan lagu shubay yani si kala dan u yiraahno waa qof wax badan og oo kale machine wax walba kasta loo sheegay oo ardayga hadduu qish sameeyo kale laga soo ogaan karo saasi lamida xataa waxa lagu soo diray laftigiisa horumarin ayaa lagu wadaa yani xogaha lagu abuuray AI-da laftigiisa mid qaban karo weeyaan yani jaamacadda dabcan haddii ay subscription ka haysato oo marka ardaygu assignment-giisa uu soo dirayo haddii branchkan uu soo dhex marayo waa mid la ogaan karo AI-dan xagga laga ogaan karaa waxa laga ogaan karaa badanaa wuxuu wax u curiyaa si luqadda carabiga oo kale yani maxaan ka wada luqadda carabiga waa luqadda kaliya oo aad isdaba dhigi karto haddaad doonto 20 sifo yani الدواء متقنا الجدار الطويل وحبقل شيء استبدي كرتا هذا المعرفة هذيك سنة إنجليش كمركو سمعنا يسوع أيضا وحيكون رئيس هذا اللي يرهدا إن استبدي adjectives أدو فربنا تقنا the incredible highest something بقول شيء استبدي كسا وقاب بني آدم كسو أصلا كدوان أيال نحب وأنا ملا أقول ريال أو قش كلا جسين كر طبعا بل معنى كلا حتى وكو قرنا يعني عاديا فصل كات فريدة وكو يقانا قابك وقرتid قابك أو فكرتid هدي قرال كاو يتعامل كاو شخصي كا أما إنجليش كهذا الكا حتى فرق بينه وبين وقياس كلا واحد صوقتي مركز شاليال إذن كو أديك سنة قاب منطقيا ChatGPT wax badan ay nolosha ka bedeli karaa sanadkan waxaan filayaa wax badan ayaan ku soo korsan karnaa taas waa mid kale hadda waxaan u maanay barnaamij loo yaqaan DeepSeek anagu xalqadeena caalamka wajidka waana soo hadlin laakiin se waa barnaamij dhawaan ay soo saartay shirkad Chinese waliba bishaan iyo bishii hore dabayaaqada bishii Janaayo dabayaaqada ay soo saareen kaas oo runtii aan oran karo ani xitaa isweydiiyo ChatGPT-ga lacagta ka bixiyo kan farqi intee laga u dhaxayn karto marar badan baan damcay in aan isbarbar dhig sameeyo hase yeeshee unfortunately wuxuu ku soo aadaa marmar oo server ku busy ah sababta barnaamij oo free maadaama uu yahay halka ChatGPT uu lacag ka yahay ayagu adeegooda serverkooda dalab ka badan ayaa ku dhacay boqolaal ama malaayiin qof ayaa hal mar dalbanaya taasoo keenaysa in uu marba serverkooda uu busy noqdo yani marar badan hadda halkaas ku artay ari busy aan soo qariba jirto waxa la mid marka waxaan asna saasoo kale waa barnaamij ay soo saartay shirkadda Chinese runtii anigu aan isdhigi karo mararka qaar meelaha qaar oo kaga fiican yahayba ChatGPT hase yeeshee reer galbeedka dabcan ay ka soo horjeedaan hadda su'aalahan oo kale talyaaniga u dambeeyay oo mamnuuc saareen waxay dhaheen xogaheena ayuu gudbinaya ma rabno Mareykanka already yani dabcan wax ka soo Chinese wadada ka soo horjeedaan laakiin anaga dan ayaa nagu jirta markasta galbeedka iyo bariga inay barataan sababtoo ah suuqa mar walba waxa u fiican baratanka يعني نلش واحد قلبه إن بريتن كأما ترتن كفرنا ذا يفعل صادرت هذا أي نتيجة جديدة كهرباء هذا وارتين جوجل فيسبوك ميت مثلا أوبن إي آي وحاصل ما تروح كتر تميان عالم كإي آي ده كتر تميان قرأت كم عملك مركز سؤال وكل كم بس لو يدين كنا tell me about the latest news tell me the latest عندنا بس about دان هراء قدال بنوجي
about AI xogaa yar busy buu noqonaya wuu qaataa marmar busy baa uu iska soo jaraya laakiin aanu caadiyan shaqooyin xitaa marmar ii qaban waayay ChatGPT oo aan lacag ka bixiyo ayuu runtii qabanaya waaba isweydiiyaa marka qaar haddii busy-nimadan ka baxo marka qaar serverkan ay sii horumariyaan inaaba u wareegi doonaaba laga yaabaaba laakiin runtii weli midaan 100% isku halayn kara maaha طبعا aslaftiisa qaabka u fakari waan tusayaa GPT-4o waxay weydiinayaa wal aad u dambeysay xogahan weydiiyay uu ka fakaraya dhamaantood laftigiisuna qaabka dabcan qishkan ChatGPT uu sameeyay marka dayta waxay ka hor arkaynay oo su'aal wuxuu ka fakariyo ka hadlayaa asay isla sheekaysanaya famisa wixii hadda uu soo wada qishkiisa u jeeda Copilot uu soo sheegi doona oo soo sheegayba AI May 2024 buu ka soo bilaabaya dabcan asagu xog meel fog uu ka soo bilaabaya si guud GPT-4 inuu soo baxay Google xogtay soo saartay Microsoft mataqaana Copilot ka kombiyuutarada ku dartay Meta open source samaysay LLM3 loo yaqaano stability shirkadda wax soo saartay waxa la baan soo kala marka laakiin midkan waxa lagu xantaa inuu maadaama shirkad China soo saartay waxa la badan oo policy China jaan qaadaya kama hadli ka tusaale kala daan dhahno tell me about Taiwan haddaan dhaho maxaa dhici doona Taiwan haddaan dhaho muxuu dhigi doonaa wuxuu leeyahay sorry scope-kayga ka baxsantay oo dhigi doonaa tusaalahan dabcan kama hadlay Taiwan waa somehow dawlad dal qaar ictiraafsan yihiin laakiinse China ay aaminsan tahay inay dal ayagana mid ay dhaxda sadarteed kama hadli karo waxaa kaloo jirta Tiananmen Square wax loo yaqaano hadda ka hor waqti arday isu soo baxday oo meel barxad caan ah oo banaanbaxaas la dhaho arday dad badan bay ku xasuuqday markaas dawladda China taas haddii wax laga weydiiyo adan muxuu dhigi doonaa aan aragno aydan wax dhigi doono dabcan isla su'aashii kula jawaabtii kuna siin kama jawaabi karo leeyahay marka waa waxyaala iska normal ah dawladuhu shuruucdooda qawaaniintooda ay iska laakiin anaga taasna ma qosayso hadii koor waxbarashadeena iyo horumarinteena caadiga aynu adeegsan karnaa DeepSeek halaga war doona waliba qayb wuxuu leeyahay computer ku shubin kartid laakiin computerkaaga haddii uu RAM-kiisu badnayn storage-kuna kugu yar yahay ama kaydku kugulama talinayo kan online-ka ayaan is oranaya ku anfacaya barnaamijkeena xiga waxaa loo yaqaanaa Notebook LLM ama haddaan qorno notebooklm.google.com haddaan qorno waa mid website ugu caansan weeyaan horey uga soo hadalnay waliba isla xalqadahan kale ayaan ku sameynay waliba waa barnaamij ku fiican qofkii marka ardaya oo waliba master ama PhD diyaarinayo kale inuu adeegsado kaasoo buugaag fara badan intuu soo geliyo asagoo mataqaanaa si kooban oo haddii la ku soo togol yahay khulaasiisan xagga u heli kartaa bal xitaa inuu podcast kaaga dhigi karo ama cod kaaga dhigi karo tusaale kale the richest man in Babylon ninka ugu qanisanaa Babylon boqol ayaa jiraan gelinay wuxuu ka sameeyay tusaale podcast 30 daqiiqo ah today we're going to be doing something a little bit different. We are going to be time traveling back to ancient Babylon. Oh wow. To unearth some financial wisdom. And waa free runtii boqolkiiba free weeyaan waa la soo deegi kartaa hadda ku samayn kartaa marka la ku dhifatid download ayuu leeyahay speed ka bedeli kartaa su'aaladan times 2 ka dhigo kale times 2 dan ka dhigo kale degdeg u hadlaya see how it's relevant even thousands of years later. Okay, I'm intrigued. Yes, we're going to be digging into the original. waa fahamsan dabcan waa garan kartaa oo soo celin kartaa waxa la kala lamida interactive mode waxa la ku soo dareen oo inuu qaabku isku la hadlaya anagu la hadli karno kala something like that ku soo dareen waa isna soo kale barnaamij free ah ka faa'iideyso waana san leeyahay insha Allah barnaamijkeena xiga waxa loo yaqaanaa Google AI Studio asna waa mid saa hore soo aragteenba inta shaashada la wadaagtid adii kartid waxa aragtay iga sheekay muxuu yahay aad ula sheekaysan kartid prompts aan ku diyaarin karno tusaale ahaan oo kale trip ideas safar fikradiga si intaan dhahno kale oo ku diyaarin karo itinerary iyo wax la mid ah meesha ku dagaysid xaaladaha ay tahay magaalo walba qaabkeeda waa barnaamij runtii asaguna aad iyo aad waafi u ah haddana waliba free marka qofkii mataqaanaa chance haya oo waxaan dhan isku darsan karo runtii ka faa'iideysan oranaya Google AI Studio halaga war doono dabcan kan ugu dambeeyay wuxuu noqon doonaa is oranaysaan waa YouTube oo dabcan hadda meesha naga daawanaysaan baa laga yaabaa ama Facebook meesha markaas ba tahay YouTube meelaha ugu ka mid yahay runtii markasta waa maktabada ugu weyn ee muuqaalada loogu laabto dhanka internetka taas su'aal inay ka taagan tahay mid dood ka qabto ma filayo YouTube runtii saan u malaynayno waa ka xad weyn hadduu YouTube ku ahaan jiray ilaa maalinka maanta ah meel adamaashaad iyo heeso iyo waxa la iska madadaala oo mataqaana aad sameyn jirtay dabcan madadaaladu marka nafsadu u baahan tahay taas kama soo horjeeday laakiin se inaad u adeegsan karto wax haytiinkaaga
ifii aakhir ku horumarinayo runtii wax muhiim weeyaan waayo maanta wax walba oo mataqaanaa quseeya nolosha u dambeysay waxbarashada heer walba ay tahay ayadoo free ah koorsooyin ah saacado ah jaamacadihii ayaa koorsooyin ku bixinaya meeshan ayagoo free ah yani wax kasta oo u baahan tahay halkan ku jiraan tusaale ahaan oo kale koorsooyinka ugu jecel ka mid ah waxaa ka mid ah CS50 course oo la dhaho jaamacadda Harvard bixiso Dr. David Millan oo bixiyo tusaale kale fiiri 22 million followers haysta koorsada waxay ka mid tahay koorsooyinka ugu caansan computer science khuseeya oo isla jaamacadda Harvard ardada si loo sii bartaan loo soo geliyo kale waa mid runtii qaab loo fasar ma lahan yani qaab wax walba keenaysa yani ilaa hadda ku soo geliyahay Code Academy ku jira wax walba ka baran kartid waxa kale ku jira dilaa ku soo geliyahay iyo shirkado kale oo fara badan runtii yani free code baa jira free code camp baa jira shirkadahan oo dhan kulligood qofsadan way leeyihiin halkaan muuqaal ay soo gelinayaan ayagoo runtii markaas kuwa loogu daawashada badan yahay wax walba yihiin macallimiin hindiya oo haddana adduunka aan ognahay qof walba inuu wax ka korsado way jiraan marka jaalayaal dhowr koobsada suuqiin soo koobay haddana noqdo ChatGPT haddana noqdo DeepSeek Perplexity Google LM ama mid kale oo yaqaan Notebook Google AI Studio iyo sidoo kale YouTube iyo kale loo marka waa barnaamijyo aan dhammaan xalaal uga soo hadalnay laakiin haddana markii aad isku darsato mid walba mid dhinac marka ku fiican u adeegsatid aan is oranayo wax badan in nolosha ka wadalaya marka jaalayaal sanadkan waxaan rajaynayaa sanadkii inuu noqdo ka faa'iideysi wacan una faa'iideeya السلام عليكم